gacan bir leh wax ka qabta Hargeysa inanka ka oranaya Somaliland ma jirto ama Somaliland mar raba ninka ka oranaya waa inaan gurigiisa nabad ku seexan anagu iyadoo qoriga anagu qorina lagu seexiyo rasaas xabadiyadoo lagu seexiyo 8 wixii ka horeeyay meeshaan aad arkaysaan ay sawiradan lihi ee sawirada kale aad arkaysaan lihi waa Hargeysa waxa weeyaan taariikhdu sida ay sheegayso waa 88 kii bay ahayd goortay sida noqotay waxaanu ahayn dhalinyaradii daadiina ahayd ee ku dagaalamaysa Hargeysa dhexdeeda raggii sidiinoo kale nololodka ahaa qaar badan oo hebel iyo hebel u garanayno oo ama waxbarashada hoose ku dhaxakooda jirnay ama aanu asxaab ahayn ama aanu ehel ahayn ba halkan ku wada dhintay qaar baanu meedkooda anagu arkayna ay cunayay iyo waraabayaan oo aanan ka ridi karin meesha waxa loo soo maray tacab dheer oo aanaydan iminka maskaxdiinu qiyaas karin marka laga tago kuwii ku dhintay ee guryahaasi ku dubeen ee bahaluhu ku cuneen meedkooda ku cuneen marka laga tago kuwii noolaa ee markaa ka badbaaday qaar baa waxaan ku gaajo iyo darxumo qaarna u dhintaan qaarna iyagoo aan waxba ku noolayn halka ka badbaadayay dalkan dhibaatadaas ay ka muuqato ka muuqato maantana quruxda aad arkaysaan ay ka muuqato waxa weeyaan waa lafa iyo dhiig dad bay ahaayeen waxaan idin leenahay nabadda ilaashada oo nabadeeda ilaashada oo mustaqbalkii iyo maxaan ku tacabkii dadkaas ay soo galeen waxa weeyaan future-kiina waxaan dhalinyarada ku waaninayaa Somaliland dhiigii abayaashin iyo dhiigii awooyaashin iyo dhiigii maxaan ku adeeradiin ayaa u soo daatay oo u soo dhintay oo idinku soo tabcay maantana alxamdulillah wataad quruxdeeda iyo sidaynu eeg tahay iyo amnigeeda aynu wada joognayno intayadii ka soo doogtay iyo intiina ku dhalatayba aynu ku raaxaysanayno insha Allah ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay mustaqbalkiina iyo future-kiina ha wanaajiyo annaguna intaanu idin dhex joogno taariikhda la soo maray maanta halkan waxa ah oo inoo dhisay madaxweynaheena sharafta leh museumkii ugu tala galay wixii dalka la soo maray iyo wixii uu taariikh la soo maxaan ku u lahaaba in la idin dhigo la idin ku kaydiyo waana la idin ku kaydin doona insha Allah bidmillaahi kariim idinka iyo ubadkiina aad dhali doontaanba halkaas aad maxaan ku kaga faa'iideysan doontaan wixii aad dalkan loo soo maray maanta idinka ubaxa u soo baxaya maanta idinka maxaan ku ahdaayay mustaqbalka uu dalkan higsanaya idinkuna ilaashada ha isqabyaaladaynina ha iskala qayqaybina ninka aan Somaliland ogolayna ciddu doontaha ninka aan Somaliland ogolayn ee waxa weeyaan Somalilandnimada diidan ee ka soo horjeeda waa nin noloshiina ka soo horjeeda waa nin doonaya inuu sidii aan ku soo noolaanay iyo dhibaatadii aan soo marnay dib idinkana idin soo mariyo 60kii aabayaashay markay geeyeen Soomaaliya calanka geeyeen waxaanu ka dhaxalay inaanu taa soo marnaa aad arkaysaan waxaanu ka dhaxalay inaanu maaragtay kala 3 meelood oo 2 meelood ay ku dhintaan ayaanu ka dhaxalay maanta waxaanu gacanta ka soo gelinay oo aanu maxaan ku raahdaayay idin keenay idinka iyadoo xora oo ay cidina idinku maxaan ku idin la lahayn cidina idin qasbayn cidina aanay maaragtay aanay choice-kiina aanay lahayn ee xor u tihiin waxa idinku doontaan marka insha Allah u bixi dalka tihiin waan idin ducaynayaa nabadiina ilaashada dalkiina ilaashada maxaan ku raahday ilaashada qarannimadiina ilaashada ninka ka soo horjeedana gacan bir leh wax ka qabta Hargeysa inanka ka oranaya Somaliland ma jirto ama Somaliland mar raba ninka ka oranaya waa inaan gurigiisa nabad ku seexan anagu iyadoo qoriga anagu qorina lagu seexiyo rasaas xabadiyadoo lagu seexiyo 8 wixii ka horeeyay oo 3 galabnimo cadcad marka halka u wareegtana la seexiyo ayaanu haddana nin oran jirin waxaanu anagu doonayno waxaan diidanahay inuu qasbin qori caaradi inuu xariyo mooyaan marka insha Allah bidmillaahi kariim maanta xurriyada aad haysataan waa tacabkayagi waa future-kiini waxa weeyaan mustaqbalkiini waa idinka waxaan insha Allah rajaynayaa inaad ilaashan doontaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh